qofka aad tahay un bay ku xiran tahay guusha lagu sheegayo sida magnetkii oo kale ay dadka qaarkood u soo jiitaan oo iyadaaba soo doonataba waxaad arkaysaa qof aad iyo aad ugu fiican xiriirka dadka dabeecadiisu ay wanaagsan tahay la dhaqanka dadkiisu oo maasha Allah yahay cibaadadiisu ay fiican tahay si dabiici oo naturally ah ayaa laga yaabaa guushu inay si fudud ugu timaado halka qof kale oo laga yaabo in soo jiidasho una lahayn oo waxyaabahaas aan soo sheegayno diin ha ahaato ama dhaqan kale ha ahaado ama dabeecadiisa ha ahaato ama xiriirka bulshada oo kale communication skills inuu kulliitoo kale guushu inay ka cararto mar waliba oo isagana uu raatraysanayo uu mar waliba raatraacsi ku jiro oo uu daba ordayo ayay u badan tahay marka si aad u soo jiidatid guushu oo iyada ay kugu timaado waa inaad adiga noqotaa qof soo jiidasho leh su'aasha meesha taala marka waxa weeye sideen u noqonayaa qof soo jiidasho leh simple number 2 waxyaabaad aadka isaga fiirinayso waxaa ka mid ah soo jiidashada ugu fiican ee aad rabtid horta waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa inaad ka noqotid qof soo jiidasho leh cibaadadiisii faraa'idtii sunantii dunuubtii uu kaa celi inaad iska ilaalisid wixii la imaa uu ku yiraahdo inaad la timaado horta number 1 assignmentigaas horta tick saar iska sax taa markaa ka soo gudubtid kadib ayaa waxaad u imaanaysaa haddana sideed ku tahay xiriirka dadka communication skills sidee ku tahay heerkee ka joogtaa 1 ilaa 10 haddii isku cabir lagu dhasay isku cabir lahayd 6 5 9 2 depending waxay ku xiran tahay hadda meesha aad ka joogtid communication skills waa critical dhowr jeer hadda ka horan waa ka soo hadlay qof waliba inta uu uga fiican yahay qofka kale xagga xiriirka dadka ayay guushiisuna u soo degdegtaa xiriirka dadka waxaan ka wadaa la hadalkooda fahamkooda dabeecadahooda in qof ka duwan oo kale aad siisid meel uu naftaadii ka soo galo oo kaliya kuwa adiga kugu nooca kaliya inta la hadashid kuwa kale oo dhan aad iska wada tuurtid ma garanaysid meesha ay fursadda ka imaan doonto kaas aad burinaysaa suuragal ah opportunity-gii noloshaada inuu ku jiro walidaalika qof oo accommodating ah oo noloshiisu ay soo galayaan dad tira badan space fiican leh qalbigiisa waasac u yahay marka number 1 horta communication skillska aad iyo aad inaad isaga fiirisid kuna dadaashid way arrinta kale muhiimka ah waxa weeye oo haddii communication skillska aad ku fiican tahay iyadana ku hagaagi doonta arrimaha networking way inaad dad asxaab ina yeelatid asxaabtuna asxaab the right team ina yeelatid asxaab sax oo ku horseedaysa masalan haddaad rabtid $10,000 inaad samaysid oo lacaga waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka mid ah qof $10,000 hore u sameeyay raadi haddaad rabtid $100,000 haddaad rabtid $1 milyan xagga financing marka laga hadlayo iyo hanti iyo haddaad ka hadlaysid la saaxib dadka already waxaad haysta ha ku mashquulina waqti badan ha ku dhumin qolo markoodii horeba rock bottom ahaa oo baaba ah ha ku mashquulin raadi qofkaas la saaxib la fariiso shah lacab adiga kafeega bixi mararka qaarkood warayso qofkaasi la saaxibnimadiisa waxyaabaha ka faa'iideysa waxaa ka mid ah horta number 1 network iyo mudabadabaadka uu ka hadlaayo iyo aagaga muxuu ahaa ii sheeg maxaan dhahaa waveskiisa mawjadihiisa meelaha ay marayaan ayaad horta ogaanaysaa mawjadahaas markaad heshidna naftaada sida caadiyan ah mar alla markuu message u yimaado jawaabay ka bixisaa waxay raadinaysaa mawjadahaas sida lagu heli lahaa laakiin mawjadaha naftaada ay helayso dhanba hadday yihiin mawjada aad u hooseeya oo dad ebera ay yihiin oo kale oo noloshu wixii adiga aad rabta aanan haynin noloshu uma sahlano in ay intay isdiyaariso qorshooyin dejiso kadibna meeshaas ay aado marka horta raadi dadka meelaha aad rabtid in aad gaartid jooga xagga financing tusaalaha xagga diinta haddaad rabtid qof caabid fiican inaad noqotid raadi wadaad aad isleedahay diintu cajiib buu ku yahay la hadal la fadhiiso hadday suuragal kuu noqoto haddii inta ay suuragal ku ahayn dhegaysa muxaadarooyinkiisa waa kaanaka aad la joogtid oo kale qaada buuga kutubtiisa akhri oo kale networkingku marka qaarkoodna virtually ayuu u dhici karaa mararka qaarkoodna physically ayuu u dhici karaa marka haddii aad jir ahaan qofka la kulmi kartid good haddii kale still raadi akhrinta buugaagtiisa fiirsashada muxaadarooyinka kulli waxay ku siinayaan ruuxaan kulli waxay ku siinayaan iftiin ayay ku siinayaan oo ah waxa aad raadinaysid walidaalika waxaa kuu sahlanaan doona markood arki doontaa in guushu iyada ay kusoo raadsanayso oo ay kuu imaanayso mar walbana ka dambayso waxyaaba kuwa hagaagaya aad arkaysaa wixii kaa foga oo mar walba ka dambeeya kuu soo dhowaanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba uu ku sahlayo marka si aad u soo jiidatid guushu adiga waa inaad noqotaa qof soo jiidasho leh
qaacidooyinkaas hadda aan kuu soo sheegay inaad ku dadaashidna mar waliba waa muhiim iyo kuwa kale oo badan guulayso goor waliba